guriga aan deganaa duqeymo ku dhacay dibna waa gaadhay burburna uu gaadhay wuxuuna kamid ahaa guriyihii magaalada sida aan midaan dayga lahayn loo duqeeyay gurigaygu kamid ahaa aan deganaa dib badan baa dhacay cidii geysatayna wali kursigii bay fadhidaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Ahmed oo laascanood ku booqday ayaa si kooban xogiga siiyay dambiyada dagaal ee taliska Cornel Biixi uu ka geystay halkani Khaliif waxa uu ku sugnaa magaalada laascanood intii uu socday kacdoonka shacabka SSC ee Soomaaliland duulaanka dhagaraysan kaga jawaabtay gudoomiyuhu wuxuu ii sheegay in gurigii uu magaalada ka deganaa ciidamada Soomaaliland duqeymo u geysteen oo uu gebi ahaanba burburay si lamida guryaha kale ee magaalada kuwaas oo nidaamka Hargeysa hanaan u muuqda argudasho iyo sirnacayb u duqeynayo Khaliif waxaan ugu horeyn weydiiyay gudoomiye soo dhawow halkan laascanood baad ku sugnayd intii dagaalku socday inta ogaalkaaga خسارة دجال كنتوا ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أدي أضل وحن سنتين محمد يوسف runtii muddadii dagaalku socday waxaan ku sugnaa magaalada laascanood dhibka magaalada ka dhacay wuxuu isugu jiraa mid nafeed oo aad u ballaaran oo lagu qiyaasi karo dad ka badan 200 oo qof inay ku dhinteen dhinaca shacabka iyadoo aan filayo inaanay intaa in la mid ama ka badan ay gaadhay ciidamada ay gaadhay iyaguna weerarka ahaa waxa kale oo ku dhaawacmay dad 600 ka badan waxa burbur soo gaaray kaabayaashii dhaqaalaha iyo goobihii adeega guud oo ay ugu horeeyaan cusbitaalka oo la oran karo way ku noqnoqotay duqeymaha ku soo dhaca oo maalintii ugu horeysay qaybtii oxygen-ta ayaa dhaawac u gaadhay iyo dhibaato soo gaadhay maalintii xigtayna wuxuu soo gaadhay qaybtii solarka markii dambe wuxuu soo gaadhay qaybihii kala duwanaa ee cusbitaalka oo ay ugu horeyso qaybtii dhalaanka iyo hooyada oo burbur aad u ballaaran oo soo gaadhay waxay soo gaadhay burburkaasi masaajidada wuxuu soo gaadhay